mid baan taa kale eg fiiri aniga xiriirkii ugu dheeraa cimrigay gabadhaan la sameeyey anigoon qabin oo aan uurideyda ahayn 4 bilood kama badnayn dee waa runta ka badan maxaad isku sheegaysaa but okay waxaan xasuustaa subxaan allah ninkii hore oo qabay xafsa queen oo sir badan bannaanka keenay xitaa ku saabsan intaysan isguursanin wiilkan asagoo xataa xishoonaynin oo hadallo qaris isticmaalaynin ayaa sir badan bannaanka soo saaray sida ogtihiin xafsa queen dad badan ayay jecel la soo wadaagtay inta badanna ay public ogan yihiin bulshada la socdaan xiriirkeeda way adag tahay xiriirkeeda jacayl inuu qarsoomo inta badan xafsa queen jacayl nasiib leh ma hesho muuqaalka dadkii dhammaysteen oo yar oo live tiktoka lagu sameynaya waxaa arkaysaa ninkeeda hor sir badan ayuu bixinayaa xitaa iska dhaaf guurkooda kadib iska dhaaf wuxuu bixinayaa sir intaysan isguursanin nolosha ay la soo wadaageen ayuu u bixinayaa isagoona xataa hal qarinaynin hadalooyin qarsan qofka isticmaalaha waa qof aqli leh waxaa arkaysaa muuqaalka hadallo durdur ah inuu isticmaalaya inta badan waan aragnay xafsa queen markii hore waxay isla socdeen xataa cabaar isqaweyn rashka boy kaasoo marar badan ay isqabeen ay cabaar isku noqdeen marar badanna kala tageen marar badan dad isku keenay balse jaceylkoodaas uuna raagin xafsa queen rashka boy kadib nolol adag ayay gashay ayaan isdhihi karaa dhaqaale kama hadlayo dhinaca dhaqaale kama hadlayo dhinac walaaltinimo balse waxaan ka hadlayaa dhinaca jacaylka waxay noqotay qof nasiib u helin qofka bini'aadanka inta badanna wax hadduu qaato wax haddii la siiyo mise wax hadduu haysta fuul ma aha ma dhammaystirna qof perfect ah ma jiro ayada haddaan fiirino dhinaca jacaylka kuma nasiib kuma leh waxaa arkaysaa inta qof ay la soo shukaansatay inta qof ay isla soo jacayl wala wadaageen qof walba dhawarka ayuu u jeediyaa mar walba waxaa arkaysaa qof ka duwaya muuqaal anshax xumo ah ayadoo xijaab la-aan ah mise cod qof ay shukaansanayeen dadka badan waxay dhahaan xafsa queen waa qof oonan ka fiirsanin waxay faraha la gasho way ogtahay inta badan raggan waxay ku raadsadaan waa magaceeda waxay rabaan inay ku caanbaxaan maalimo yaryar ayay jacayl ku abuurayaan maalimo badan ayay muuqaal la sameynayaan markay dantooda ku gaaraan albaabka ayay ka baxayaan yaa ila arkay mar walba oo nin shukaansato waxaa arkaysaa kiyo youtube soo fadhiistay hadalla aad ka naxayso isticmaalayo subxaan allah inta u badan waxay u egyihiin rag u soo umaadeen leh inay ku caanbaxaan saan ogsoonahay iyo dad badan oo xaafadan islii nairobi way ogyihiin gabadhan inay qalbi fiican tahay qof iska furfuran ay tahay qof walba usoo dhawaadana waxay u maleysaa qof jecel oo qof rabo ma aysan ogo in ay dadkan yihiin mas laga yaabaa waxyaalaan waxa ku dhaqaajinaya inay tahay xanuun depression stress ay ka qaaday gabadheedii cunugeedii markuu ka dhintay aysan helin garab rashka boy oo intaasoo sano nolosha isla wada qaateen markii ay cunuga u dhashay waa aragteen suu yeelay xitaa isagoo 2 bilood joogin ayuu guur u iska aroostay keenaysa xafsa queen in oo nolosha nooc kale kula noqoto ee xanuunkan ka qaado hal waxay ka qaaday sasmo rag waxay u malaynaysaa qof walbo u imaado inuu ayada rabo qof walbo u imaado ayada inuu jacayl waaldi ah oo lifetime ah inuu siin doono saas ayay u malaynaysaa u fiirso qof walbo u imaado wuu yuusgareeyaa dumar iyo ragba wax u fiican ma laho inta u badan subscriberkeeda followerskeeda ayaa mar walba siiyaan oo tips hataa usoo qorayaan qof walba aad saaxiib la tahay kuma jeclo qof walbo
saaxiib la tahay oo kula wareego oo kula cunteeyo ma aha walaalka. Waa aragteen inta badan waad aragteen subxaanallah waxyaalaha badan ay ku sameeyaan raggan. Mar waa mid caannimo raadinayo. Waxaa arkaysaa qof dhahay muuqaalaan ka haya, codan ka haya. Maxaa u malaynaysaa intay nolosheeda soo galaan ee maalimo jecel ku abuuraan ee wax yar kadib YouTube soo fadhiistaan kuwiiba waxaa arkaysaa boqolaalan subscriber haystaan oo nolol kala bilaabeen. Miyaa u malaynaysaa si dhab ah inay u jecel yihiin? Qof walba oo ayada nolosheeda soo gale Rashka Boy kadib wuxuu noqday qof ku dheela, qof ku ciyaara, qof ayada hoos u dhigo. Subxaanallah waa gabar maskiin ah, waa gabar Soomaaliyeed. Dadkan oo maski ah maxaa waaye maxay ka faa'iidayaan in qof walaalkood ah ay faraha la soo galaan, qof walaalkood ah dhabarka u wareejiyaan. Waa aragteen kii Rashka Boy kadib hadda kan hanadkan waa kii afaraad mise kii shanaad wuxuu sheegaya waad aragteen. Qof walbo hadda ay la hadasho wuxuu noqday mas. Mararka qaar dunidan qof walbo aa aragto aad shaashada ka daawatiin noloshiisa ma dhammaystirno. Lacag way haysataa, qurux Ilaahay wuu siiyey, waa gabar yar. Laakiin jacaylkii ayaa laga hoos qaaday. Qof walba wuxuu noqday qof mas ah. Qof walba wuxuu noqday qof rabo inuu ayada ku caanbaxo. Aanan fiirinaynin gabarnimadeeda, fiirinaynin naxariisnimadeeda, fiirinaynin Soomaalinimo. Wallaahi bilaahi sometimes waxaa ku qabanaysaa gabadhan intaa gacan qabato la hadasho aad dhahdo saan ma ahee saan iska dhaf. Hadda qof walbo isla joogo waa arkaysaa Rashka Boy faraha ayaa laga qaaday. Ayada lagu soo wareega. Maxaa keenay inay Xafsa Queen faraha lala soo galo? Waxaan dhihi karaa sidaan ii sheegay Xafsa Queen uma laho nasiib xagga jacaylka. Qof walbana aa aragto ma dhammaystirsano. Qof walba fiirinaysa aad xiriir la leedahay aad arkaysa mar walba follow garaysa subscribe u tahay noloshiisa ma dhammaystir. Hadda Xafsa Queen waa gabar qurux badan, lacag leh. Mar walba waxay u doorataa nimankan maska ah. Waxay heli kartaa qof ajaanib ah. Haddii ka wayso dhinacan waxay heli kartaa qof ajaanib ah oo na dhicin ha dhacin ha jabin. Hadda qof walbo ayada ay jecel la sameyso wuxuu ku noqdaa mas. Hanad miyuu ku saxsan yahay muuqaaladan uu ka duubay ayada? Muuqaaladan uu la wareegay internetka ah Hanad ninkeedii hore Xafsa Queen miyuu ku saxsan yahay? Hanad aan u malaynaynin inuu farxad siin doono Xafsa Queen saan ayuu noqday. Hadda Xafsa Queen aamini doontaa nolosha jacaylka iyo farxadda.